dowladda Japan ayaa waxay xusaysaa weerarkii ugu horeeyay ee hubka waxgumaada atomikada ee taariikhda dalkaasi lagu riday 6 Août 1945 oo maanta laga joogo 27 sano waxayna ahayd dagaalkii labaad ee adduunka. weerarkaasi ayaa waxaa lagu riday labada magaalo dhanka koonfureed dalkaasi Japan ku yaala. Hiroshima ayaa weerarka bambaanada atomikada lagu riday waxaana ku dhintay 140,000 oo qof halka 3 maalmood kadibna lagu riday magaalada Nagasaki oo iyaduna ay ku dhinteen 74,000 oo qof. xuskaasi ayaa waxaa ka qayb galay ra'iisul wasaaraha Japan Shinzo Abe iyo marti sharaf kale oo ka kala yimid dalalka dibadda mar halkaasi ka hadlayay xuska 27aad ee weerarka hubka bambaanooyinka atomikada ayaa waxa uu sheegay ra'iisul wasaaraha Japan Shinzo Abe in dunidu ay ku hardamayso hubka waxgumaada ee nuclearka waxaana uu sheegay in taasi ay muhiim u tahay wadamada adduunka in wax laga qabto. hubka ayaa waxa nuclearka ayaa waxa haysta adduunka 9 wadan oo kala Mareykanka, Ruushka, Ingiriiska, Shiinaha, Faransiiska, Hindiya, Pakistan, Kuuriyada Waqooyi iyo Israa'iil.